wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka guud ee Puntland oo la qaaday bishii May ee sanadkan. Imtixaankan ayaa laga qaaday ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee guud ahaan degmooyinka iyo gobolada Puntland. Wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay ardayda iyo iskuulada ka galay kaalmaha ugu sarreeya ee imtixaanka. wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka. aniga halkan waxaan kaga dhawaaqayaa insha Allah 10 arday ama 10 natiijo ee ugu sarreysa. waxa laga yaabaa qaar baa ardayda natiijo isku mid ah helay. waxa laga yaabaa 3 arday inay hal kaalin wada gashay, 2 arday inay hal kaalin wada gashay. sidaa daraadeed waxaan ku dhawaaqayaa 10 kaalimood ee ugu horeeya. ardayga koowaad ee ardayda Puntland sanadka kaalinta koowaad galay waa Khadar Saciid Salaad. wuxuu ka soo baxay dugsiga Boosaaso Public. ninkaas waa ardaygii ugu sarreeyay guud ahaan ardayda 5,000 ah. wuxuu helay 98 macnaha 2 point baa ka dhiman imtixaankii guud ahaan ee dalka 98. u duceeya insha Allah ardaygaas. waxaa ku xigta gabadhaasi waxaa la yiraahdaa Aasiya Cabdirasaaq Xirsi Cusmaan. gabadhaasi waxay ka soo baxday dugsiga Galdogob. gabadhaasi waa Galdogob. waxay iyaduna heshay natiijada ah 97.86. waa gabadhaas weeyaan. kaalinta saddexaad waxaa galay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Yuusuf. waa wiil Imaam Nawawi Boosaaso 97.43. kaalinta afraad waxaa galay Axmed Qaasim Maxamuud Warsame. waa Cumar Samatar. dugsiga Cumar Samatar buu ka soo baxay Galkaayo 97.27. kaalinta shanaad waxaa galay Cumar Maxamuud Xasan Yuusuf. wuxuu ka baxay dugsiga Alwaaxa. natiijadiisuna waxay noqotay 97.14. kaalinta lixaad waxaa isla galay 2 arday, Cabdirasaaq Warsame Cusmaan Maxamed oo Muntada Qardho 97. waxaa kaalinta la galay Faarax Ismaaciil Cusmaan Maxamed oo isagu ah Nawawi Garowe, iskuulka Imaam Nawawi Garowe. iyo waaslada arday kaalinta lixaad bay isla galeen waana 97 natiijadoodii. kaalinta toddobaad waxaa gashay gabadh la yiraahdo Aniisa Awil Cabdiraxmaan Yuusuf. gabadhaasi waa Nawawi Garowe. iyadoo waxay 96.86. kaalinta sideedaad waxaa galay Jaamac Xasan Axmed Guuleed. Imaam Shaafici waa Imaam Shaafici Boosaaso. wiilkaasi wuxuu helay 96.29. kaalinta sagaalaad waxaa isla galay 3 arday. kaalinta sagaalaad 3 arday waa isla galay. qofka ugu horeeya waa gabadh waxaa la yiraahdaa Aamina Xuseen Cumar. Imaam Shaafici Boosaaso 96.14. 3 arday oo darajadaas ay wada heleen. waxaa kaalinta la galay Farax waa wiil banama waa wiil Farax Yuusuf Ciise Yuusuf. waa Muntada Qardho. isna darajadaas uu helay 96.14. waxaa isla kaalinta sagaalaad la galay Maxamed Maxamuud Axmed Diraac oo ah dugsiga Cumar Samatar Galkaayo. isaguna wuxuu helay 96.14. ardayga tobnaad oo ah 10 ardayda ugu sarreeya ugu hooseeya ugu dambeeya waxa weeyaan Cabdifataax Yuusuf Maxamed Xasan. waa Imaam Nawawi Boosaaso. wiilkaasina wuxuu helay 96. 10kaas kaalimood ee ugu horeeya ardayda Puntland sidaas bay ku soo gabagaboobeen. ilaahay waxaan ugu rajaynayaa guud ahaan dhammaan ardayda Puntland ee tiro aad u yar dhacday 82 arday baa dhacday. ardayda 5,000 82 arday baa dhacday. it means waa wax aad u yar, waa very relative, wax aad u yar weeye, wax aad u yar baa dhacay. ilaahay waxaan ugu rajaynayaa dhammaantood inuu ku guuleeyo waxbarashadii. waa ku guuleeyay inta uu hadhayna inuu ilaahay ku guuleeyo. hada wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Puntland ayaa sanad walba qaaday imtixaan shahaadi ah oo ka madax bannaan imtixaanka qaran ee dowladda federaalka Soomaaliya ay qaado. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Garowe.